nimcooyinka Ilaahay ina siiyey ee aynu haysano iyo sida aynu dhugba ugu lahayn. nin ayaa waxa uu soo raacay tariin. kursiga ka soo horjeeda waxaa fadhiyay nin oday ah iyo wiil dhalinyaro ah. wiilku sidii ilmo yar ayuu u boodboodayaa oo uu leeyahay, aabe, anigu dhinaca daaqadda xigta ayaan fadhiisanayaa, woona faraxsan yahay sidii ilmo yar oo 5 jir ah. ninkii hor fadhiyey wuxuu yidhi, waan la yaabay ninkan weyn ee sidii ilmo yar u boodboodayo. mise muddo yar kadib, aabe, bal eeg, dhirtu way ordaysaa oo way ina daba cararaysaa. waxaan la sii yaabay, ayuu yidhi ninkii odayga wiilka dhalay. isna sidii ilmo yar ayuu ula hadlayaa oo uu marba wuxuu weydiiyo ugu jawaabayaa. dhul beeraley ah ayaanu soo marnay. mise wiilku wuxuu leeyahay, aabe, eeg quruxdan. aabbihiina wuxuu leeyahay, waa beero oo waa cagaar. waana la yaabay, waxaana leeyahay wooba ka sii daray. mise muddo kadib ayuu haddana leeyahay, aabe, eeg, daruuruhu tareenkii ceersanayaan. muddo markaanu soconnay ayaanu soo dhex marnay dhul ay daaqayaan lo. mise wiilku aabbihiis ayuu leeyahay, eeg eeg aabbo. aabbihii wuxuu leeyahay, aabe, waa lo midabyo badan. wiilkii ayaa yidhi, oo lo'du ma sidaan ayaa midabadeedu ah? ninkii aad ayuu ula yaabo muuqaalka uu jeedo, wuxuuna isweydiiyey, wiilku miyuu xanuunsanayaa oo dhinaca maskaxda iyo dhimirka ayaa loogu jiraa? wuxuu la sii yaabay aabbihii oo aanu marnaba lahayn, war naga fadhiiso, nin weyn ayaa tahaye. hase yeeshee marba madax ayuu u salaaxayaa oo wuxuu weydiiyey ayuu ugu jawaabayaa. muddo kadib wiilkii ayaa seexday. ninkii markuu arkay in wiilka uu seexday ayuu ku dhiiraday odaygii aabbihii ahaa, wuxuuna ku yidhi, waxaa habboonaan lahayd wiilkaaga inaad dhakhtar dhinaca maskaxda ah geysid. welibana wuxuu ku yidhi odaygii, haddaad u baahan tahay anigaa kuu tilmaamaya dhakhtar wanaagsan. odayga wiilka dhalay inta uu qoslay ayuu wuxuu ugu jawaabay ninkii, runtii cisbitaal ayaan hadda wiilka ka soo saaray, laakiin maahan cisbitaal dhimirka. odaygii oo hadalka wata ayaa yidhi, wiilkayga muddo dheer oo gaaraysa 25 sano ayuu indhaha la'aa oo aanu waxba arki jirin. hadda ayaa cisbitaal indhaha looga soo jeexay ka soo saaray. marka waa markii ugu horreysay ee uu tariin soo raaco isagoo indhaha wax ku arkayo. marka wuxuu aad u xiiseynayaa muuqaalada uu arkayo. ninkii wuxuu yidhi, mar keliya ayaa isbedelay oo aan idhi, waad xukunta wiilka adigoona waxba hubsan. waxa kale uu yidhi ninkii, waan jirracooday markaan dareemay indhala'aanta xaalkeeda iyo nimcada Ilaahay qof kasta oo ku manaystay ee aynan ku maahdin. waxaa lagama maarmaan ah walaalayaal in aynu hubsanno inta aana waxba xukumin. soomaaliduna waxay tidhaahdaa, hubsiina hal baa la siistaa. nimcada Ilaahay ina siiyey hadday noqoto caafimaadka iyo lixaadkaba sida indhaha, aynu dhugmo u yeelanno oo aynu Ilaahay mar waliba ugu shukrinno nimcooyinka aan xadka lahayn oo Ilaahay ina siiyey.